qaar kamid ah waayeelkii waxgaradka labeynta gobolka Sanaag ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dalka loo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo waliba ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Selici waxaana dhammaantood ay xubnahaas Ilaahay uga baryeen xilkaasi loo doortay inuu u fudaydiyo waxaana xubnahaas halkaasi ka kala hadlay hadaladoodii kamid ah saataan halkan waxaanu ka hambalyeynaa ama aanu bogaadinaynaa madaxweynaha cusub ee loo imika loo ku guuleystay doorashadii mudada dheer soo socotay ee ay dadku sugayeen Muuse Biixi Cabdi ayaan halkan aad uga hambalyeynaa iyo dadkii badnaa ee ka soo shaqeynayay xisbiga kulmiye waxaan isugu leeyahay inaan ku hambalyeyno madaxweynaha 5 sano soo socota ee maanta lagu dhawaaqay natiijadiisa ay ku dhawaaqeen guddiga komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana aad baan ugu hambalyeynaa dhammaan waxaanu gaarsiinaynaa hambalyada marka waxaanu halkan hambalyo uga diraynaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Selici oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa baanu hambalyeynaa waxaanu waa ku faraxsanahay waxaanu ku dareynaa dhalinyaro iyo waayeel u baxa nabadgelyada hala ilaaliyo marka hore waxaan leeyahay hambalyo dhammaan reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan anigoo ku hadlaya afka gobolka Sanaag waxaanu taagnahay hambalyada madaxweynaha cusub ee 5 sano ee soo socota aad baan u hambalyeynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Selici waxaan halkan hambalyo uga diraynaa iyo guwaabin madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Selici waxaan hawada ku soo marinaynaa horta leed caafimaad waxaan kugu soo xijinaynaa ilaa xilka kugu asuro madaxweynaha horena salaan fiican baan u soo gudbinay halkan waxaan ku hambalyeynaa madaxweynaha cusub xilka hadda loo dhaarin doono waxaanu leenahay ilaahay kugu asturo xilka lagu dhiibay waxaan isugu nimay hambalyada madaxweynaha cusub waa guul soo hoyatay geeska Afrika oo dhan gaar ahaan reer Soomaaliland mar hadday si nabada inuu ku dhamaatay doorashadii uu ku guuleystay musharaxa Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay haddaanu reer Sanaag nahay anoo ku hadlay afka reer Sanaag waxaan leenahay waxa hambalyo leenahay Ali Adan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceerga